السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دوادا حبين عصب wellness with إكرام عاو حربا أنا كهضلو وحو self care لده basically شن قضب أو حن كهضلا نفترض أو خبن كرتيتسي أو نفترض وجود داشت أما مسكح ذا وجود داشت مدكوبات وحواي معنا كستقف كإنه وقتي معين إن نفتيد سيسو وحاول بهرنا وقتي أو حاجرو because أنا كبني آدم كبيزي واي حتى الدنيا دنا بيزي إسكا وضع نقاط الصو وحا مشغول كنا معنا كاستعرورتي الأضيقي شقادي إهلكي قف كستو حواي لنا كستو على جديدنا هذا لجو بهني هاي so it's very important قف كست إني معنا كاستهلك كرت وقتي يار حتى هذه نقطة 8 دقيقة إني just نفتي ذا وحو قبضة إني نفت just فريسة مر quiet time ربطو إني هشو إنه مثلاً هذا ربطه إنه سي ترتيب أو interruption كجورن إنه بوكو أقرصته أما قرآن كو أقرصته أما TV كو فيرسته it's so important that 10-15 minute نص ساعة سيتو وحوين أوقف كمسكح دي سو ترى so اسكو دايما على قصتي إنه وقت ير السيسيد هذه أو نفتاده كده داشت متكلا وحاجرته connecting with friends إيو family so again الدنيا because مشغول واي قف كستو وحواي ضدك على جوا فاميلكي أصحابتي أهلكي مال حريرينايو because أرضهم كجرنا مالن كستو and the more الدنيا دي سيد دبر لجنا the more ضدك حريركي أجوزد أكسيك لفوجاتد so وحد عيس مركا إن وقت جدا بعيس أركتد أضد وحلهين صاحبة لأن صاحبة دي أنك كلتين because وقت ما هو هاسد dadka ku xiriirisid so it's very important familka iyo ehelka iyo saaxiibada in la xiriiriyo because habiyo ka dhiga marka qof aad jeceshahay la sheekeysatid aad la qoshashid maanta ada waxaad dareemaysaa khafiif aad dareemaysaa culeyskii iyo dhibka ku hayda marka iska dajisid khafiif aad dareemaysaa oo fududaanaysaa so it's very important in xiriirka la goonin mid kale waxaa jirta in qofka ay ka hadasho dareenkeeda so I think family friends marka xiriirinaysid iyo dareenkaaga inaad ka hadlaysid way isku xiran tahay marmar because dad waxaa jiraan ehelkooda iyo saaxiibadooda markay la xiriiraan ee la fadhiistaan way qoslayaan waqti fiican isla qaadanayaan laakiin muu sheegayaan waxay dareensan yihiin haddii dhib ku soo zaa'iday haddii farxad ku soo zaa'iday again because society waxaa ku noolnahay wax kasta personal iyo private ee noqotay so qof kasta wixiisa isku celinaysaa and that's not healthy ma aha so it's very important marka ehelkaaga iyo saaxiibadaada iyo dadkaaga aad la joogtid wixii ku dhibaayeen inaad u sheegan kartid ana wixii farxi kugu soo zaa'idan inaad la qaybsatid because dadka waana ku farxayaan farxadaada waana ku xumaanayaan dhibkaaga oo waa ku garaawayaan so it's very important taasna inaad suubisid naftaada inaad take care garaysid of course jirkaaga inaad take care garaysid cunto fiican cuntid healthy food inaad cuntid make sure fruits and vegetables inaad cuntadaada ku jiraan inaad seexatid hurdada is so important aad iyo aad important ugu tahay dadka badankood oo mental health check laga ka cudurrada mental health-ga lagu magacaabo inay qabaan calaamada ugu koobaad ee arkaan waxa waaye hurdo la'aanta hurdada inay ka go'do so bani aadamka inuu helo at least 8 hours waa recommendation ka inaa heshid maalintii oo habeenkii oo hurdo inaa hurdid so hurdada iyo nasashada aad ay important u tahay cunto fiican inaa cuntid saa u sheegne inaa exercise garaysid hadaa awoodid inaa fadhiga badan iyo caajiska badan qofka ma u fiicna jirkiisa iyo maskaxdiisa so hadaa awoodid inaa socotid inaa orodid inaa exercise garaysid guriga dhexdiisa a lot of hada equipment iyo dadka guriga keensadaan oo lagu exercise gareeyo it's way ku fiican tahay so and then inaa marmar breathe garaysid it's good inaa just a minute fariisatid oo dhahdid you know what just everything hal dabiyo telefishinka damiye computerka damiye facebook ka bax youtube ha fiirinin for some time because waxaan noqonay xataa markii oo waqti aan qaadan nafteena aan waqti la qaadanayna ayaamahanayta waxa waaye waqtigiya wuxuu noqday inaan facebook ku jirno ama inaan youtube fiirino ama inaa sometimes it's good inaan maskaxdeena waxa dhan la damiyo everything or just quiet time ee qaadatid so it's very important in shantaas qodob maalin kasta isku daydid inay suubisid so shanta qodob aan ka hadalno waxa waaye set a time waqti meel dhig naftaada waxaa jeceshahay naftaada ugu suubisid naftaada nafta dadka kaleeto because 24/7 dadka naftooda wax u qabanaysaa soo naftaada wax u qabo mida labaad waxa waaye saaxiibadaada iyo ehelkaaga inay xiriirisid iyo dadka aad jeceshahay oo ku jecel dareenkaaga inay ka hadashid wixii ka farxiyo wixii ka xanaajiyo wixii dismoral ka dhigo
waxaas dhan familkaaga iyo dadkaaga aad jeceshahay la qaybsatid si ay kula farxaan aan markaa dhib qabtidna ilaahay ku fududeeyo ay ku dhahaan inaa naftaada take care garaysid oo cuntadaada healthy ay ahaato waxyaabaha saliid lagu dubay iska yaraysid oo inaa vegetable iyo fruitska iyo biyaha badso cabitaanka it's very good the more biyo aad cabtid the healthier aad tahay so biyaha inaa badsatid exercise garaysid si fiican u hurdid is very important and the last thing inaa break qaadatid inaa just quiet time قاعدة quiet time isku day horto I think the biggest thing or most challenging thing waxa waaye qof inaa la dhaho telefoonka meel dhig internetka demi just fariiso and just hawada dhageyso codkeeda quiet isku day inaa shib dhahdid maskaxdaada arag waxa ay experience garay doonto aan hoos igugu soo qorayso sheeg maxaad dareentay markii aad quiet time sii bisid waa intaas iyo wellness with ikram waa mahadsantihiin iyo waa habeen insha Allah habeen cusub iyo wellness with ikram السلام عليكم ورحمة الله وبركاته